yaxye barnaamijkana maanta wuxuu ku saleysan yahay is-aaminaada ragga iyo dumarka ee xaasaawaya marka ragga waxaad ku eedeysan tihiin in aad dhibaataysaan gabdhaha idin aaminay haddii aan ka soo qabano dhacdooyinkii ugu dambeeyey marka maxaa arrintaa ka leedahay samir waan dhowahay magacaygu waa yaxya isfaaciil jimcaale waxaan joogaa magaalada nairobi madana waxaan ka qayb qaataa arrimaha socialka waa soo dhaweyna waa su-aal fiican marka loo fiiriyo is-aaminaada ragga iyo dumarka ragga iyo dumarka waa la is-aaminaa waa la isguursadaa anigu waalidkii aan ka soo coskumay aabbahay hooyaday way is-aamineen way isguursadeen dhowr carruur isku dhaleen balse is-aaminaada maanta socoto is-aaminaad sax ma ah qaladkana waxaan saari lahay dumarka gabadha abaayo dumarka qofkii waa ku jeclahay gabdhuhu inkuu yidhaahdo gabadha dib uma fiirinayso laga yaabo in la soo wado la geeyo hotel cunto la soo siiyo $2 $3 lagu soo siiyo meel kale la geeyo dirac yar loo soo gado is-aaminaad intaas gabadha waa aragtaa baahideeda dhammeed wiilkana baahidiisa focuska oo ka rabo waxay tahay in gabadhaan uu hunguriyey oo helo soo gabadhii ayaga istagaan dhihi karnaa balse aaminaad xumaa jirta ma dhihi karnaa marka laga soo tago in baahideedii sidii rabta loo yeelay soo lama dhihi karo wiilka wuu isku jijabin karaa ama wuu ka codsan karaa inay aaminto aniga for example hadda anaa tusaale kaaga soo qaadayo haddii gabadha ay tiraahdo haddii gabar aan ku dhaho aniga waan ku jeclahay ay tiraahdo anigana sidoo kale gabadha waxaa lagu baahan yahay in la ka ogaato maskax ahaan caafimaad ahaantaada wixii adiga shaksiyan aad tahay iyo laana is-aaminaada ma ahan waa ku jeclahay waa jeceshahay waa isku imaanaynaa hadhowdiina foolxuma meesha ka dhulinayso micnaheeda ma aha xaawo yaxya ismaaciil wuxuu leeyahay gabdhaha ayaa u sabab ah oo qaldan oo maaragtay si sahlan qofka ku aamina marka arrintaa maxaa uga jawaabaysaa magacaaga saddexaadna iigu bilow magacaygu waxaa weliba cumar waxaan joogaa magaalada nairobi waxaa inta badan ka shaqeeya arrimaha bulshada samir waa mahadsan tahay barnaamijkan waa barnaamij fiican oo loo baahanaa iyada xilligiisina kusoo beegmay haddaan soo noqdo su-aashaada horta waa sax waan dhihi karnaa gabdhuhu qaladka ayagaa iska leh waayo waxaa jirto waxyaabo oo scientific ah oo la ogaaday oo la baaray qof bini aadana inaadan aaminin 50% xitaa hadduu run kuu sheegaayo boqolkiiba 50 ka badan qofka bini aadanka inaadan aaminin waa wax jira oo standard oo scientific oo la sameeyay marka waa sax qayb baan ka nahay in see gabadha qayb uga noqonaysa hadduu ninkan dabacsini u muujiyo daacadnimo u muujiyo uu usoo jijiifto uu waxyaabo badan siiyo see gabadha ku qaldanaan kartaa ilaa gabadha waa gabar miskiina qof maaragtay daacad iska yara dhiga hadday aragtana waa inay aamin horta waxaa jiro qofka beenlowga ah siyaabo uu qofka bani aadamka wax uga dhadhacsan karaa jiro tusaale ahaan oo kale qofka markuu wax kuu sheegaayo wuxuu kuu sheegayaa waxyaabo macaan si fiican baan kaaga dhadhacsiinayo oo adiga rumaysan karto qodobka labaad qofka waxyaabahan uu ku sheegayo wuxuu muujinayaa ama aad ka dhex arkaysaa adiga waxyaabo aad u baahan tahay baahidaadii baad ka dhex arkaysaa qodobka saddexaad oo ah qofkani oo beenlowga uu ku sheegayo waxay tahay in qofkani uu ku tuso caqabad kastoo in ka hor imaan karta inaad ka guuleysan kartaan soo marka qofka si fudud aad ku aaminaysaa gabadha waa gabar masaakiina oo si fudud wax looga dhadhacsan karo laakiin haddana ma ahan inaan aamino nimanka okay marka waad taageersan tahay miyaa dhaliisha uu soo jeediyey yaxye oo uu leeyahay dumarka ayagaa khalad ku leh inay ragga si sahlan ku aaminaan yes saas oo barti karanaya ahaa marka in maaragtay si fudud nimanka lagu aamino maaha gabadha waa inay maaragtay is-ilaalisaa gabadha waa inaysan meelaha hoteelada ugu teginin gabadha waa inaysan maaragtay aaminin gabadha hadday yes gabdhaha way shukaansadaan sideedana waxyaabahan oo in la is-aamino waxyaaba badan keeni karaa koo laba qof dadku waa labo qof mustaqbal dhab ah oo guur xalaala kaale oo kugula sheekaysanaya qofna waa qof ay ka tahay nimanku tigniig badan u adeegsadaan oo dumarka ay ku ugaarsadaan fahamtay marka qofna dhab ay ka tahay qofna dhabka ma ahan marka ayaga laftirkeeda qofku waa inuusan isdhiibin ilaa qofkaas aad ka ogaanayso gabadha waxaa laga rabaa inaysan isdhiibin
وصلنا رتبك سفلت كأمني marka labadooda markii la soo agdhiga xaawo kan beenta sheegaya wuxuu u ekaanaa daacad see ku kala saaraysaa gabadha horta waxyaabo badan baa caawin kara gabdhaha Soomaaliyeed waxyaabo badan baa caawin kara oo qofkan inuu wax ku ogaado ay tahay horta koow gabdhuhu inay wax bartaan gabdhuhu inay wax bartaan waxbarashadu kaliya ma aha gabadha in iskuul tagto hooyooyinku inay gabdhaha la saaxiibaan فهمتي هويوينكو inay gabdhaha la saaxiibaan hooyada haday gabadha la saaxiibto waxyaabo badan ay uga sheekeyso tusaalooyin badan ay siiso gabadha waxay noqonaysaa qof experience leh waayahay yaxye ragga maadaama iyagu ay rag yihiin oo dhibaato badan ay soo gaareen maxaa ku kalifaya qofkan uu waqtiga geliyay in ay aaminto hadana inuu khiyaameeyo ama uu dhibaateeyo aan ka dhaxgalo markii waqti la gelinayo gabadha waqtigeeda waqtiga gelisaa wiilkana gabadha waqtiga geliyaa soo waqtiga la geliya kala macno duwan gabadha waqtiga wiilka gelinayso laga yaabo inay naxariis iyo kalgacayl ka raadinayso wiilkina oo asagana sidoo kale laakiin baahida u fududeynaysa gabadhi mar walba qofka lana waaqiciga qofka uu ku soo koro nolosha uu ku soo koro ay ka tarjumay gabadha xumaanta hadhoodii la xumeeyo macnaheeda si aan aaminsanahay marka mis dhahayo waa sax gabadha nijib ay ku tahay wiilka laftigiisa nijib ay ku tahay oo hadhoodii laftigiisa waxa uma qarsano balse qaladka meesha ku jiro wuxuu yahay gabadha marka horeba ma ahayn kalsooni la eg lana qofka markay isqabtiin ama xaaskaaga uu yahay wax badan wadaagi kartiin dad badan isqabaa jiro wax badan wadaago banaankana aalin laakiin qof xilka ka dhaxeeyo in korkaaga qaadana u dirto sawir qaadana u dirto ama isku qaadayso macnaheedu waxa ka tarjumay inaad quality gabadhaas inuu leeyahay yaxyo saas ma dhihi karno maxaa yeelay ragga qaar ayagaaba gabdhaha waxay dhahaanba hadda igu kalsoon tahay ama ay jeceshahay muuqaal hebel ama adigoo noocaas ii soo dir marka waxay muujinaysaa kalsoonida ay asaga ku qabto inay muuqaalka dirto soo saas laga ma yaabo samir tusaale aan ku siiyo gabar asaawada ka dhaxeeya waxay ku leedahay abbo Facebook ay si aday taasha lana passwordkaaga userkaaga si for example wax si sheegaya gabadha itiraad aniga Facebook ay userkaaga si kalsooni inta la ay u qaban kartaa aniga waa siiyay ka soo qaad way haysataa aniga ayadu ila khadana laga yaabaa gabadha hadana hadhoodii Facebook oo ka soo gudbaya aniga sawirada aan rabaa markaan saxana si ugu saxdaan rabaa sawir qaadin isoo dir waxaan meenaas amal ah ma hadii ay qeyso aan ku dhaw aniga Facebook-eeda ku siiyay aan xoolaha value u yeelo marka waxa sidii kara gabdhaha maanta jiro inay ka fiirsadaan qofka saxaasaha ee la sameynayaan wiilashana gabdhaha saxaasaha ee la sameynayaan laana aan hadaltaan qofka saxaasaha la sameynayo qof walba la sameynayo waa inaan ka fiirsadaa si aniga qofka laba wajiilaha ah wuxuu ku tusin karaa wajiga ugu wanaagsan kalsoonida ugu fiican oo yaani actin hoon gadaal sii jirin marka see ku kala garan kartaa waa su'aashii aan xaawo weydiiyay qofka xun iyo kan wanaagsan see ku kala garan kartaa qofka wanaagsan wanaagiisa qalbiga ku dareensiina for example yaa xusiinada tusaale lana qofkan marka kulmaysiin nabadiga kulantiin marka umrada ku hadlaayo waxyaabo macna Allah ka hadlaa oo ka dhacayo oo mustaqbalkiina horseedayo ama mustaqbal qofka kula socdaa dadkaadi kaama qariyo dadkiisa kaama qariyo everybody waa kula og balse haddii wixii ay noqdaan ashunku adin macnaheeda haddeed waa wax kala damacsan yahay gabdhahana waa leeyihiin wiilashuna waa leeyihiin gabdhaha waa badnaadaan سأنا أمسنا قبلها لأن شرع اسكو شفاء ستاشرين يقول صدح على غيابا من غاقاني درتو لأننا بلاي اسكو درتو المشهور الجباب اسو قابط yaxay wuxuu ka dhawaajiyay in gabdhaha ayagu ay fududaadaan ayagu ay maaragtay sawirada iyo waxyaabaha qaldan ayagu raggu ay u diraan ama ayagu laftirkooda ay sharuudo la yimaadaan marka dhanka gabdhaha maxaad ugu leedahay horta sawir is-aaminaad way kala tahay aniga tusaale ahaan haddaan example ku soo qaado qofka markaan shukaansanayo simple example qofka daacadda ah waa mustaqbalka raba iyo qof kale waa kala garanaya tusaale ahaan siyaabo kaleba sida dana badan ba ha lahaado waxaa laga yaabaa markaas oo gabadha u qaarsanayo
inuu dhowr uu leeyahay maxay ahayd ujeedo kuwo waxay ka tahay inay saajin ku sameynayaan qofkan ay baarayaan qofkan qof adag baa mise qof jilicsan horta muxuu yahay qofkan nooca uu yahay kuwana way iska shukansadaanba oo dad kuwo yani experience-gooda uu yaryahay marka qawaanada labada dhinac way ka imaataa